الشباب وهاي نكي لسه اوكي ما أغاني إن كان أنا الشباب هاي إسماعيل حسن صلاة نور ومجلس أفقرشدو يهي كوماندوس waxa uu miirka ku soo laabtay isaga oo ku jira isbitaal Madiina Agoosto 5 sanadan 2022 waxa dhaawac uu ka soo gaaray bajaaj uu al-shabaab ugu howlgeli jiray kadib qarax aad u tanweyn oo la kacay isaga iyo dhagarqabo kale oo nolosha waayay xilligaas qaraxaasi ayaa ka dhacay gaarka taleexa degmada Hodan waxa uu isku maray ilaa 2015 noocyada shaqo ee al-shabaab laakiin asalkiisa waxa uu ahaa ciyaal xaafadeed sheekayaqaan ah oo ay ku maadeystaan saaxiibadiisa Boondere waxa uu ka qirayaa fadhigan maxkamadeed kaalintiisa argagixisada goobaha iyo gaboodfaladii uu geystay intii uu ku maqnaa dhagarta dadka ee dalka anigoo wado mooto bajaaj oo qarax saaran laakiin inuu qarax saaran yahay aan ogeelin oo leedahay alaabtan meel hebel geey darjiinka aan soo qaaday waxaana ka soo qaaday ex control afgooy waxaana u waday darjiinka nina ii soo dhiibay alaabtaas meeshaas ii geeyo yiri waxaas saaran liima dhahan sidaasaan wax u dhaceen ciidankana meesha iga soo qabteen anoo dhaawacay isbitaalka Madiino marka waa ka sidaas wax u dhaceen aniga iyo yarka kale isla soconay yarka kale meesha uu ku tagay baarayaasha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka iyo ilaha kale ee hay'addu xigataba waxa uu ugu diiwaan gashanaa inuu yahay ismiidaamiya waxaase Allah ku halaagay qaraxaasi dhagarqabihii la socday isna dhaawac ayaa ka soo gaaray Axmed Cabdallah xeelali xigeenka ciidamada ayaa maxkamadda weydiistay in lagu xukumo qodobada ay u cuskadeen eedooda eedeysanaha markii la soo qabanayay wuxuu mooto bajaajta ku waday 3 jawaan oo ay ka buuxaan walxaha qarxa iyo 2 boorso jawaanada waxa ku jiray 4 qori sida aan ku soo cadeemaheena aan ku soo gudbinay jawaanadana waxa ku jiray qaraxyada iyo qofkii isqarxintaas ku qornaaba mudane gudoomiye mooto bajaajtaas waxa ku geeriyooday qaraxii ee wadeen ee rabeen ummadda Soomaaliyeed inay ku dhibaateeyaan isagana wuu ku dhaawacmay saadarteed mudane gudoomiye waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanaynaa in eedeysanaha ay ku xukunto qodobka 221 iyo qodobka koowaad ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida maxkamaddu waa maasantahay qareenka uu dooday eedeysanaha waxa uu maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto eedeysana Ismaaciil Xasan Salaad Nuur maadaama Ismaaciil uu san aqaanin kutubta uu san si fiican u aqaanin oo mar aan su'aalo ka weydiinay Ismaaciil oo quraanka iigu baratay oo yiri quraanka saas uma aqaano waa iska nin dhalinyaro aqliga laga xaday diin ma celinaayo aqli celina wuu waaye mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh maadaama uu san iska yahay dhalinyaro diintana uu san aqaanin maadaama uu asiga eed loo jeediyay qirtay maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay u fiiriso sifaada dambiga fuday maxkamadda waa maasanta maxkamadda ayaa looga fadhiyaa go'aanka sida gunaanadka dacwadda uu u sheegay dhinacyada gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida intaas ayuu ku dhan yahay garmaqalka dhanka ka ahaa eedeysane Ismaaciil Xasan Salaad maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso kiiskuna uu noo xiran yahay Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho